بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي إمك وحن مانتا قادن دونا عشر كيني صدحات chapter كينا Middle East Conflict خلافاتك bariga dhexe hadaba casharkan saddexaad waxa aynu ku qaadan doonaa dagaalka la dhaho 6 days war oo ah dagaalkii 6 beri 6 days kan waxa laga wadaa 5tii ilaa iyo 10kii bisha June sanadkii 1967 dagaalkii dhacay hadaba dagaalkan wuxuu inoo noqon doonaa dagaalkii saddexaad maadaama hore ay carabtu u galeen dagaalkii koowaad oo ahaa 1948 ilaa iyo 9kii iyo dagaalkii Suez War oo ahaa 1956 inta aynu casharkan ku guda jirno ardayay waxaan baran doonaa arrimihii sababay in uu dagaalku dhaco iyo waxyaabihii natiijooyinka ahaa ee ka dhashay dagaalkan hadaba ardayay waxa la idinka doonayaa arday kasta marka uu casharkan dhamaado in uu sheegi karo oo sharaxi karo waxyaabaha keenay in uu dhaco dagaalkan 6 days war sidoo kale arday kasta waxa laga doonayaa in uu fahansan yahay natiijooyinka ka dhashay dagaalka 6 days war arday dagaalkan oo aan ka aragno xagga timeline-kiisa ilaa iyo 10ka June sanadka 1967 inuu dhacay waa timeline-kiisa oo ah xilliga uu ku beegnaa marka aan fiirino wadamada carabta 1948 dagaalkii ay qaadeen ilaa iyo 49kii ma ay noqon wadamada carabtu kuwa heshiis nabadeed gala balse waxa ay sii wadeen in ay diidan yihiin in ay wadanka Israa'iil u aqoonsadaan in uu yahay wadan dhab ah oo jira maadaama ay carabtu aqoonsan yihiin wadanka Falastiin oo ay u arkaaneen gardarro iyo faduul ka asaasida laga asaasay wadanka Israa'iil dadka Falastiiniyiinta dushooda sidoo kale 1967 waxa mar labaad isu yimaaday oo wada midoobay wadamada carabta ayaga oo ay tahay ujeedkooda ugu weyn in ay meesha ka saaraan wadanka Israa'iil si ay u badbaadiyaan dadka Falastiiniyiinta hoggaanka dagaalkan waxa qabtay wadamada Ciraaq, Syria iyo Masar ujeedkooduna wax kale ma ahayn waxa uu ahaa in ay meesha ka saaraan wadanka Israa'iil oo ay quweeyaan dadka Falastiiniyiinta halkan waxaan ku fiirin doonaa sida uu dagaalku u noqday waxyaabihii dagaalka ka dhigay in uu dhaco wadanka Ciraaq 1963 waxa ka dhacday isbedel kaas oo ay saameysay afkaartii ururka Bacth ee ka dhexdhacday wadanka Syria sidoo kale wadanka Ciraaq waxa uu noqday mid u diyaarsan in uu wada shaqeyn la yeelan karo wadanka Masarna hoggaanka waxa ay u haysaa in ay mar walba Israa'iil la dagaasho oo ay dib u soo celiso xorriyadda dadka Falastiiniyiinta wadanka Israa'iil sidoo kale waxa ka dhacday kacdoon isaguna keenay in ay soo baxdo ururka Bacth 1966 halka markaa waxa ka muuqata wadanka Egypt in uu helay xuluufo ay ka mid yihiin Israa'iil iyo Syria oo la leh iyaguna gacan saar dhow wadanka Masar sidoo kale Jamal Abdel Nasser waxa uu noqday nin caalami ah oo soo caan baxay oo hoggaankiisa carabtu ay noqotay mid aad loo yaqaan hadaba Jamal Abdel Nasser waxyaabaha uu doonayo waxa kamid ahaa in uu wax ka bedelo nolosha dadka Masaarida isaga oo adeegsanaya afkaartiisii socialist policy ama communist policy marka halka waxaan ka garanaynaa Jamal Abdel Nasser in uu haysto sumcad aad u weyn Russia waxa ay dhiirigelisay Egypt iyo Syria
taasina waxa ay sii siyaadisay in ay noqon karaan wadanka Syria iyo Egypt kuwa sii faafiya kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan wadanka Israel oo ay propagandooyinkii ay faafiyaan maadaama Russia waxa ay wadamada tan u taageertay waxa ugu weynaa in ay yihiin socialist iyo sidoo kale in ay Israel u aragto puppet oo ah wax gacan ku samaysa oo ay iska leedahay wadanka Mareykanka oo ay mar walba lid isku yihiin haddaba dagaalkan sidoo kale waxa ku soo biirtay Jordan iyo Lebanon oo iyaguna ciidamadooda keenay halka ay frontierka ah ee Israel sidoo kale dagaalkan waxa ku soo biirtay Iraq Saudi Arabia iyo Algeria halka waxaynu ka aragnaa in dagaalkan kooxda Carabtu ay quwadooda siyaaday dhammaan wadamada tani waxa ay isku bahaysteen in ay jabiyaan wadanka Israel haddaba Israel maadaama ay aragtay in quwadda Carbeed ay xoogan tahay waxa ay samaysay taagtiga ah in ay dagaalka ayadu ku hormarto halka ay sugi lahayd in ayada la jabiyo sidaas darteed waxa ay noqotay in ay dagaalkii si kadisa ay ku gasho iyagoo waqtigii ay filayeen aan dagaalku ku bilaaban taasina waxay keenaysaa in ay ku dhardhaartay ciidamadii oo kala daadsan oo aan diyaar u ahayn dagaalka halkaasna ay keeni karto in ay ka hesho guulo haddaba waxaan fiirinaynaa dagaalkani wal oo ay ku wada jireen wadamada tan oo dhan waxa ay guushu ku raacday wadanka Israel maadaama isagu uu noqday kan marka ugu horeysaba dagaalka qaaday haddaba waxa isweydiin mudan waa maxay sababaha keenay in ay dagaalka Israel ay ku guuleysato dagaalka Israel in ay ku guuleysato waxyaabaha keenay waxa kamid ah Carabta oo ay noqotay inay ciidamo badan keenaan haddaba ciidamada isu keenadkoodu in uu ku keeno inay daahdo oo ciidamadii xilligii la isu keeni lahaa ay waqti dheer qaadato taasina waxay u noqotay Israel inay qaadato waanin oo ah digniin inay dagaalkii u feejignaato oo feejignaan siiso maadaama ay iyagii waqti badan ku qaadatay ururiska sidoo kalena inay ciidamadoodu badan yihiin waxa ay ka dhex aragtay Israel in ay iyadu jabi karto sidaas darteed waxa ay keentay khidad ay ku guuleysan karto ayaga oo badan darteen marka aan fiirino Israel waxyaabaha kale oo keenay in ay guuleysato waxa kamid ah Israel waxyaabaha ay aadka ugu fiicnay waxa kamid ah diyaaradaha dagaalka sidaas darteed hadii ciidanka laga soo weeraro xagga cirka waxa aad u dhimanay ciidanka lugta iyo waxyaabo walba oo ay ciidamadu ka sameynayaan xagga dhulka sidoo kalena diyaaraduhu maadaama ay fiican yihiin oo aysan haysan wadamada Carabtu diyaarado noocaas oo kala ah waxa ay keenaysaa in aan diyaaradaheeda la soo ridi karin waxyaabaha keenay oo kale waxa kamid ah inay Israel guuleysato Carabtu waqti badan ayay ku qaadatay diyaar garowga sidoo kale isku xirkooda iyo wada shaqayntooda wuxuu ahaa mid liita haddaba waxa ay ka faa'iideysato waayo ayada waxa u noqotay quwad iyo awood daldalooladii wadamada Carabtu ay lahaayeen ayadoo arrimahaas oo dhan qiimeynaysa waxa ay Israel keentay in ay noqoto wadanka ku guuleysta dagaalkan muddada dhow socday ee la dhaxayo 6 bari halkan arday waxaynu ku fiirin doonaa markuu dagaalku dhacay waxyaabihii soo caan baxay maxaa kamid ahaa Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ayax tag ee la reeb dagaalkii 6 bari waa uu dhacay haddaba dagaalkani haduu dhacay maxaa dagaalkan ka dhashay
dagaalkani waxa uu Israa'iil u noqotay in ay ka keento guul weyn taasina waxa ay meesha ka saartay in ayba ku gacan sayriso go'aanka qaramada midoobay oo ay qabsato territory ballaaran sidoo kale waxa uu meesha ka saaray dagaalkani in ay Carabtii iyo Israa'iiliinta meeshii u dhaxaysay ee ahayd power zone-ka ay noqoto Israa'iil inay ku sii faafto sidaas darteedna maadaama ay meesha ay degtay Israa'iil waxa ay keenaysaa inaan Israa'iil la soo weerari karin maadaama ay gudaha u gashay wadamadii soo weerari lahaa dagaalkan waxyaabaha ka dhashay waxa weeye in ay noqoto in dad badan oo Carab ah ay ku dhex noolaadaan xukunka wadanka Israa'iil taasina waxa ay keentay in ay noqoto mid siyaada refugees camps ama xeryaha qaxootiga waayo waxa dhacday in ay qabsato West Bank iyo Gaza Strip oo ay ku noolaayeen dadka qaxootiga waxa ay keentay dadkan Carabta ah in ay gudaha u galaan maamulka Israa'iil oo aysan marna ku qanacsanayn dagaalkani waxa uu jab ku ahaa wadamada Carabta hadaba Carabtii waxa ay u baahnaadeen in ay helaan taageero sidaas darteed Jamaal Cabdinaasir waxa uu raadiyay in uu taageero banaanka helo maadaama uu arkay inaysan Carabtu ku filnayn kaligood in ay xoreyn karaan Falastiiniyiinta waayo waxa halkan isugu yimi dhammaan wadamadii Carabta oo ku guul dareystay dagaalka sidaas darteed Jamaal wuxuu ogaaday Falastiiniyiintu ka sokow garabka Carabta ama garab istaaga Carabta inay u baahan yihiin taageero dibadda ah Russia markeedii hore go'aamada ay qaadatay waxa kamid ahaa in aysan Jamaal Cabdinaasir wax hub ah aysan hadaba arrinkaas wuxuu ku keenay inay ka qoomamayso taasna si ay u soo celiso xiriirka ku lumay in ay taageeri weydo wadanka Masar xilliga kan adag ee ah 6 day war waxa uu ku keenay in ay markii dambe siiso hub casri ah ayada oo raadinaysa in ay Masar keeni karto inay dib isugu diyaarin karto inay gali karto dagaalka ayna xoreyn karto waayo Russia waxa ay ka carareysay inay lumiso xiriirka ka dhaxeeya wadanka Masar iyo ayada sidaas darteed waxa ay siisay hub casri ah halkan marka aynu fiirino jabka ugu weynaa ee dagaalkan ka dhacay waxa kamid ah in ka yar asbuuc maadaama aynu niri dagaalku waa 6 days waxa uu keenay maamulkii yaraa ee cusbaa in ay qabsadaan meelaha ugu badan oo ah Sinai iyo Gaza Strip in ay ka qabsato wadanka Masar West Bank iyo East Jerusalem in ay ka qabsato Jordan Golden Heights in ay ka qabsato Syria dhammaan arrimaha kani waxa ay ku keeneen fashil oo waxa ay siyaadiyeen baaxadda ay ku fadhido ama ay ku faafsan tahay wadanka Israa'iil sidaasna waxa uu ka dhigay wadankii Israa'iil ee ku ekaa Falastiiniyiintu in uu gudaha u garo wadamada sida Jordan Syria iyo Masarba halka arday waxa inoo ka muuqata dagaalka dhexdiisa meelaha ay qabsatay waxaan aragnaa dhammaan qaybta weyn ee guduudani waxa oo jaalaha wuxuu inoo tusinayaa in ay qabsatay Israa'iil dhammaan Sinai gacankii ahaa oo dhan sidoo kalena inay qabsatay Gaza Strip West Bank iyo Golden Heights waxa ay keentay markaa inuu faafto baaxadii Israa'iil ilaa iyo al'aana Israa'iil waxa ay haysataa Golden Heights iyo West Bank taasina waa mid ku ah dhabar jab wadamada Carabta sidaas darteed halka arday waxaynu ku fahanay arrimaha ka dhashay dagaalka waxaan idin rajaynayaa inaa 10 kan fahanteen oo aan si fiican uga jawaabi doontaan su'aalaha soo socda
haddaba su'aalaha soo socda ardayay waxa idin leedahay waa maxay arrimihii sababay in uu dhaco dagaalka 6 beri sidoo kale waa maxay natiijooyinkii ka dhashay dhicitaankii dagaalka 6 beri ardayay intaa waxa inuu ku ega casharkeennii saddexaad ee chapterka 9 waxaan idin rajeynayaa guul iyo baraare